بسم الله والحمد لله والثناء لله وصلى الله على رسول الله. Soomaalidu waa murti ku dhaqan iyo murti maal. Fanka Soomaalida berigii hore waxa loo haystay wax fool xun bilowgiisii welina wax bedelay waxun baan haynaa xidigaa geeska oo magacii xumaa intay ka dulfaydeen maanta magac qurux badan u sameeyay fankii. way waxaad arkaysaa dadka dhalinyarada ee ku soo rooraya kooxdaasi fanka wajiga u soo dhigtay inuu jeclaysi leeyahay ee aanu ahayn kii hore ee laga turjumi jiray ee foolxumada iyo ceebta lagu muquunin jiray. waxaan maqlay in heesihii wadaniga ahaa TV-ga iyo radio idaacadda qaranka labadaba laga mamnuucay sababtana maanu fahmin. heesaha qaranku intay tiriyeen iyo intay tarayaan dee ilaahun baa og iyo ummaddu halkay wacyigelinta ka helaysay in la yidhaahdo lagama sii dayn karo dee waxa weeye dhibaato iyo dhaliil xukuumadda u taalla. wasiirka warfaafinta wasiir waxaan ku leeyahay fanka iyo idaacadda iyo TV-ga qaranku waxay ku dhisan yihiin waa fanaaniinta iyo suugaanta way waxay ku dhisan yihiin. haddii lala culoobo kooxdan waxa weeye fankii oo la colaadiyey fankana haddii la colaadiyo laba meelood unbaa dhibaato xukuumad ridi kara. qayb waa ardayda laakiin qaybta ugu culusi waa suugaanyahanada iyo fanaaniinta geeskuna xidigaa geeska ma aha dad la dhayalsado. waa dadka ilaa maanta heesaha qarankee wadaniga ah bulshada intay u qaadaan bulshadu qarannimadu waxay tahay ay ku ogaadeen. sidaa darteed waxaan leeyahay nimankaa fanaaniinta ee xidigaha geeska yaan aad loogu fiirsado xuquuqday dalka ku leeyihiin iyo howlaha ay dalka u hayaan. haddaan meel lagu tiirinna tale farahay ka haadi doontaa. wasiir waxaan ku leeyahay fanka ha loo fasaxo xorriyaddiisa ayaan la cabudin. shacbigu idinkama fadhiyo cidda keliya maaweelisay madadaalisa waa xidigaha geeska oo waxay dalka u qabanayaan iyo maalin walba waxay ka sii daynayaan masraxyada ay tegayaan in dee aad loogu roonaado. way ka mudan yihiin bulsho kasta oo wax qabanaysa. bulsho waxaa jirta dhowr ururo waxaa jira dee dowladdu ay gacan siiso laakiin waxay dalka u qabteen aan jirin. iyagu heesta keliya qaadaan ummadoo dhammi iyo carruurtu waxay ku hadaaqaysaa berito waa heestii wadaniga ahayd. had iyo jeer xukuumadaha masalan markaad eegto xukuumaddii maxamed siyaad barre xoogga iyo miisaanka waxay saari jirtay waxay ahayd fanaaniinta kooxdii waa beri. madaxweynahana waxaan leeyahay kaambeyn baa socda aad og tahay oo loolan siyaasadeeda. fanaaniinta haddii la takooro yaa wax kula xukuumadda wax kula. xukuumadda markaa waxaan ku goobaabinayaa khaasatan madaxweynaha yaan lagaala hoos bixin xidigaa geeska. xidigaa geesku waa udub dhexaadka qaranka Somaliland weeye. waxay ummadda u qabtaanna cid kale u qabata maanu arag weli waa xidigaha geeska. waanan hambalyaynayaa waxaan leeyahay kuwii jiree jooga allah idinka dhigo midnimadiina iyo isu tagdiinna iyo kala dambeyntiinaba in ilaahay idinku guuleeyo ayaan idinka rajaynayaa. wax kaloo waana ah dee la idin odhanaya hadhay ma jirto. midnimadiinuna tii jirta ee waarta ha noqoto. ummadda Soomaaliyeedna kuwii horseedka u noqday ayaa tihiin. ummadda reer Somaliland idinkaa horseed u ah fanka iyo suugaanta. markaa maanta waxaad tihiin dad lagu mahadnaqo oo ilaahay lala kaashado horumarkooda. midna xukuumaddan leeyahay
jaamacada waxaa jira faculty had iyo jeer arrimaan khuseeya oo alfunuun aljamiila la yidhaahdo oo qaar musicians ay soo saartaa dad artist oo gacanta wax ku sawiray soo saaraan qaar sculpturinka oo wax qoryaha inta wax ka qoraan wax ka sameeyay soo saartaa bal jaamacadaha reer Soomaaliland ku dadaala sidii kulliyadaasi u sameyn lahaydeen ee dadka fanaaniintii ay uga soo bixi lahaayeen dad fanka hore u mariyo kale